Mareykanka oo kamid ah dalalka taageera Soomaaliya ayaa ka hadlay amniga dalka gaar ahaan lacag uu ku bixiyay 20 sano la soo dhaafay. Kusimaha safiirka Mareykanka oo qaabilsan qaramada midoobay ayaa golaha ammaanka ka horshaaciyay in lacag gaaraysa 5.3 bilyan ay ku bixiyeen amniga Soomaaliya isla markaana ay ka soo bixin wax natiijo ah. Sidoo kale waxay intaasi raacisay inaysan u dhigmin lacagaha fara badan ee lagu bixiyay ammaanka Soomaaliya iyo natiijada ka soo baxda. Safiir ku-xigeenka ayaa sheegay in Mareykanka uu muddadaasi adeegsanayay duqeymo dhanka cirka ah oo la beegsanayay balse tallaabooyinka militari kaliya aan xal lagu gaari karin. Mareykanka wali wuxuu adeegsanayaa duqeymo isagoo rajeynaya inuu ku dhufto shakhsiyaadka ugu muhiimsan Al-Shabaab, hase yeeshee waxaa shaki la'aan ah in tallaabooyinka militari aanu ahayn xalka kaliya ee lagu guulaysan karo Al-Shabaab, ayuu yiri safiir ku-xigeenka. Ugu dambeyn waxay walaac ka muujinaysaa lacagaha canshuuraha ee la siiyo dagaalyahanada Al-Shabaab iyadoo tusaale u soo qaadatay weerarkii Hotel Iled oo sheegtay in dhaqaalaha lagu abaabulay laga qaaday xarumaha ganacsi ee Soomaaliya. Hadalkan ayaa ku soo aadaya iyadoo toddobaadkan Africom ay shaacisay duqeymaha ay sanadkan 2020 ka fulisay Soomaaliya kuwaas oo khasaare lagu gaarsiiyay Al-Shabaab. Maxamed Ruuraay, Galmudug TV.